kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal mar kale iyo barnaamijkii codka jaaliyadda telefishinka qaranku idin kaga imaanaya magaalada Oslo daawada barnaamijkan ayaanu waraysi kula yeelanaynaa muwaadin Soomaaliyeed oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Oslo in badanna dalkan degan oo lagu magacaabo Garaase Cabdullaahi Maxamed Garaase waxa aan ula kulano kulankan aan waraysi kula yeelanayno ayaa ah in dalkan oo in muddo ah deganaa warqado loo soo diray la yiri waxa aad uga baxaysaa dalkan laguna celinaya dalka Soomaaliya Garaase ku soo dhaw markii ugu horeysa barnaamijkan codka jaaliyadda ee telefishinka qaranka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد حسن هرتوا ما سنته وحان كلو هلكن وجهدنا لما أمد الصوماليات ميلوا بيجوا العالم ك وضع جديسة وادي السلام waxaan rabnaa wax ka weydiino dalkan dadka degan oo Soomaaliyeed ka mid tahay in muddo abaad deganayd waxa soo korodhay ila soo xiriirtay in lagu soo diray waraaq dalka looga baxayo bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa xaaladda waraaqdaas lagu soo diray iyo adeeg ahaan dalkan inta deganayd bal iyaga bilow iyaga sheekay dalkan Noori goormaad timi imsaad joogtay intaan waraaqda loo gudbin anu wadanka Noori waxa imid 2001 bishii labaad maalinta laakiin ma xasuusto 2001 bishii labaad baa imid muddadan laga joogo 15 sano marka 2004 waxaan keenay xaaskii hore iyo Aamin Yunus Maxamed iyo laba caruur ay dhashay laba wiil ay dhashay marka kadib 2004 baan keenay 2004 markaan keenay waan shaqaysanay shaqo lagu keenay waan degay markaan degay alxamdulillaah rabbil caalamiin adigu 3 sano kadib haddana 2 sano kadib inaan kala helay 3 caruur baan noqonay familkii kadib haddana 4 baan noqonay ilaahay maadis laba halkan igu dhalatay laba aan keenay marka waayahay 4 caruur iyo adigii qoys baad ahaydeen dalka deganaydeen waad ka shaqaysanaysay waraaqa waxa la soo diray aad dalka uga baxayso haatan bal dib ugu noqono sharci nooc ah haysatay intaan bal la gelin bixitaanka intaan la gaarin sharci nooc dalka ku haystaa adigu ani caruurtayda sharci deganaansha ayaanu ku haysanay wadanka iyo hooyadoodba marka waxa dhacday in anoo shaqaysanaya ay caruurtu waa iska taqaan hadii maaragtay wuxuu rabo ama maaragtay wax uu markaa doonaya aad warmahay daawriya ooyo oo xogaas ilkaan biyo iskoolkii loo diro wuxuu leeyahay brikamal isagoo waa abasaas yeelay ama idili ama hooyo ay dishay marka sidaas aweed waxa dhacday in iskoolkii iyo maxaa ku raada ay maaragtay ay soo weerareen oo ay yiraahdeen maxaa ku raada ilmaha waa la dilay waana qaadanayna marka waa la kulmay waxa irisay dilku muxuu yahay dilka sheegaysan marka waa mashruuc oo maaragtay caruurta Soomaalida lagu daldalanayo oo macnaha nabitaan iyo maxaa ku raada iyo cadaalad darro iyo boob halka ka jirta waayahay caruurtii afarta ahayd xilli waqti laga joogo waa la kaxaysto oo laga qaad waxa laga qaatay 2010kii ka hor markii 2010kii la qaatay baa haddana waxa dhacday in ay anigi iyo xaaskii sukay dareen oo ay yiraahdeen maxaa ku raada de sabab waxa uu ahaa maaragtaa hadii aad maaragtay caruurtaada waa helaysaa annagana ku caawinayna maxaa ku raada saas maaragtay ninkan maxaa ku raada aabii oo caruurta ka dilay iska fogey waxa dhacday marka waa marka la kala fogeeyay oo ayadii kaliya ayadina gooni dacwada u gashay ana maxaa ku raada gooni u galay oo leeyahay diro ismaal ana ka soo jeedin adiga waxa dhacday markii dambe in nalaka macnaha leeyahay dir xaaskina markii xaaskii leeyahay dirina sidaas maaragtay caruurtii ku qaateen oo ay yiraahdeen maxaa ku raada hatta noo hanjabin hada isku soo dhawaataan isku keen aragno waxa weeyaan Soomaalida ka tuurana labadiina adigii xaaskii sidii waa ku kala tagteen caruurtiina waxa qaatay Banavan xagee caruurta markii la qaatay ma isku meel baa la geeyay mise waa la kala qaybiyay waa la qaybiyay afarta caruurta ahayd 4 famil oo Norwegian ah loo kala qaybiyay si aysan ayaga isku arag isku baran isku
dhaqan noqon maxaan ku raadaay u kala lumaan isku iloobaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa horta amar waxa macnaha dhacdadan igu dhacday waxaan maaragtay aan ka codsanayaa in laga caawiyo meel walba ay joogaan wadanka gudihiisa hadda waxaa la soo diray waraaqahan oo leeyahay maxaan ku raadaay go'aankan aan ka gaarnay 15 sano oo wadanka degan oo caruur igu dhalatay aysu guri Israel ahaw waraaqdan tartiib bixitaanka u soo noqono waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka hore marka caruur la qaato tira inta leeg afar ay tahay adiga iyo islaantaadina la isku kiindareysaa sheegtood kala tagteen wada shaqeyn ma idinka dhaxayso caruurtii ma u wada dacwooteen see xalkiinu ahaa markii caruurta baxday oo xilliba ka soo wareegay hadda 5 sano ka hor 2010kii bishii koowaad ayaa la qaatay maadana waa 2016 December dacwadii waxaan daba joogaba adigu ayadana waa u dacwoon jirtay annaga waa u dacwoon jiray maxkamado dhowr ah aanu marnay waxa dhacday markii in la xukumay oo 2 sano